kulanti waxaan daawada ku soo dhawaada maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay 6 arrimood ay ku kala duwan yihiin taajirka iyo faqiirka. Waxaa jira farqiyo badan oo u dhexeeya dadka maalqabeenka ah iyo kuwa saboolka ah. Dhaqamadooduna gebi ahaanba way kala duwan yihiin. Halkan waxaan ku soo gudbinaynaa ilaa iyo 6 waxyaabood oo taajirka iyo faqiirka ay siyaabo kala duwan u sameeyaan. Qodobka koowaad, buugga iyo telefishinka. Dadka faqiirka ah inta badan marka ay firaaqada hayaan waxa ay daawadaan telefishinka. Laakiin marka la barbar dhigo dadka taajirka ah, intooda badan waqtigooda firaaqada ah waxa ay akhristaan buugaag. Inkastoo labadan arrin ay ku imaadaan dooq oo dadka ay dabeecad u leeyihiin akhriska kuwana daawashada jecel yihiin. Haddana inta badan waxaa la amaanaa akhriska oo faa'iidooyin badan lagu sheegay. Qodobka labaad, qaadashada lacagta. Dadka faqiirka ah waxa ay u badan yihiin kuwa shaqaale ah ama meelo kale ka suga biil loo soo diro ama shaxaad oo ay qofka ka qaataan. Helitaanka lacagtaasi dhankooda waa mid ku xiran waqti. Inta badanna waxay sugaan dhammaadka bisha. Laakiin dadka taajirka ah waxay lacagtooda ku qaataan natiijo ka soo baxday ganacsigooda ama mashruuc ay fuliyeen. Sidoo kale mar waliba inta ay la eg tahay lacagtooda waxa ay ku xiran tahay waxa ay sameeyaan muggiisa. Qodobka saddexaad, guuldarrada. Sida lagu ogaaday daraasado badan, dadka saboolka ah waxay guuldarooyinkooda iyo nasiib xumada ku dhacday ku eedeeyaan dad kale. Hase ahaatee, dadka maalqabeennada ah ayaa sidaas ka duwan oo mar walba oo ay wax ka halaabaan iyaga ayaa mas'uuliyadda qaata, waxayna durbadiiba xoogga saaraan sidii ay xal u heli lahaayeen. Qodobka afraad, lacag dhigasho, maalgelin. Dadka faqiirka ah mar waliba waxa ay ka fikiraan sidii ay u urursan lahaayeen lacag, taasoo badanaa aan u suurtagelin. Laakiin qofka hantida haysta waxa ugu horeeya ee uu ka fikiro waa in uu lacag ku maalgeliyo mashruuc. Dabcan marka uu maalgashigaasi miro dhalo ayuu qarash galayaa koontadiisa bangiga. Haddii aadan ahayn taajir, isku day in lacagtaada yar ee aad dhigaalka ku noqotay aad ku maalgashato barnaamij aad ku faa'iidaysid. Qodobka shanaad, waxaa laga aaminsan yahay lacagta. Dadka faqiiriinta waxa ay aaminsan yihiin in lacagtu ay tahay waxa sababa dhibaatooyinka, iyagoo tusaale ka dhigta in qof waliba oo lacagta haysta uu heli karo wixii uu doono, xitaa haddii uu yahay xaq uu qof kale ku leeyahay. Balse fikirkaasi mid ka duwan ayay qabaan hantiilayaasha. Waxayna rumaysan yihiin in mar waliba dilalka, dhaca, kufsiga iyo dembiyada ay ku kooban yihiin meelaha ay degan yihiin dadka saboolka ah. Qodobka lixaad, sida heer sare lagu gaaro. Inta badan dadka gacantooda aysan waxba ku jirin waxay aaminsan yihiin in sida kaliya ee heer sare lagu gaari karo dhanka dhaqaalaha ay tahay qofka uu ku guuleystay bakhtiyaa nasiib. Tusaale ahaan, in aad heshid lacag xad dhaaf ah oo ay shirkad ama dawlad bixinaysay si nasiib ah, ama in aad heshid kaararka dhoofitaanka ee lagu aado dibadda. Dadka taajiriinta ah sidaas uma fikiraan. Waxay aaminsan yihiin in sida kaliya ay dhaqaalo lagu sameyn karo ay tahay in uu qofka dhaqdhaqaaq sameeyo oo uu ficil shaqo fuliyo. Daawade waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad nagu xiran tihiin. Daawasho wacan. Mahadsanidin.